wasiirka xafiiska cadaalada ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane axmed xaaji samater ayaa sheegay in dhismaha komishinka wada hadalka qaran laga soo saaray xeerka 1265/2014 guud ahaan wadanka ama gaar ahaan dagaaladan ama su'aalihii taagnaa way human interaction oo dhan waxa ka dhashay su'aalo iyo interest markii bilaadanku saddex galkiisa siyaasadda la isku qabtaa ideology iyo waxa la isku qabtaa fikirka siyaasadeed waxa la isku qabtaa dhaqaalaha resource-ga interest-ka kala duwanaanshaha laftiisa la isku qabtaa su'aalo iska taagan baa jira marka wadanka oo fara badan oo xataa markii dastuurka la sameeyayna iska jiray oo dadka qaar ay qaybeen iyo qowmiyadaha qaarkood marka Ethiopia waxay u aragtay marka hadda inay tahay waqti ku haboon in national dialogue wax la yiraahdo ama wada hadal qaran in la galo wadanka wada hadal qaran laga galo markii wada hadal qaran la galayo dawladuhu qaar bas bay u wajahan qaar baa shisheeyaha iyo wadamo kale dhexaadiyaal ka dhigta in la eego hawlahaas ay goobjoog ka noqdaan waxyaalahaas wadamada intooda badan waxay u eegaan iyagu national level kooda inay ku xaliyaan mushkiladahaas la dareemayo markaas su'aalo ay ka taagan yihiin marka Ethiopia waxay garatay iyadoo gudaheeda inay muwaadiniinteeda iyadoo isticmaalaysa dadka sumcadda leh inay iyadoo gudaheeda hawsha ay qabato wada hadalka ay qabato marka waxa loo baahday wada hadalka sidee loo qabanayaa yaa eligible u ah ama yaa u qalma inuu wada hadalkaas ka qayb galo sharciyo noocyada la isticmaalaya procedure-ku waa sidee yaa dhexdhexaad noqonaya oo marka dhinacyadu fikraduwan ay aamini karaan oo ay doodooda u jeedin karaan ama ay hadhow waxay soo jeedin ay ku qarci karaan maxaa la isku hayaa laftiisa in la ogaado ilaa maxaa la isku hayaa in la yiraahdo way farabadnaan karaan laakiin waxyaabo major waxa jira the fundamental issues ay tabashooyin waaweyn baa jira marka waxa loo baahday in commission la asaaso si hay'ad neutral loo helo dhexdhexaada laba si loo identify gareeyo waxyaabaha la isku hayo kuwa waaweyn saddex si procedure loo helo la soo saaray oo wada hadalku ku soconayo saddexdaas baahiyad markii la arkay ayaa waxa la yiri waa in la asaaso marka hay'ad qaran oo national dialogue ama wada hadalka xigta oo iyadoo dhexdhexaad ka ah marka hore marka sharcigii baa hadda la baasgareeyay sharciga waxa lagu baasgareeyay xeer la yiraahdo 1265/2014 yaa lagu baasgareeyay tirada waa laga dooday intay noqonayaan waxa la yiri 11 commissioner inay noqdaan weey 11 ka hal xubin baa u sareeyo commissioner ku xigeen baa ku jira xubnaha kale tana waa commissioner ka hooseeya marka sumcad waxa lagu xulanayaa sumcaddooda akhlaaqdooda inayna dambi gelin inayna ururna ay siyaasadda ay ka mid ahayn requirements loo dhigay baa jira in mataqaana lagu xusho marka negotiation process-ka iyo waxyaabaha qaban doonaan iyaga laga sugaya laakiin waa guddi madax bannaan oo baarlamaanka ay accountable u yihiin iyaga marka waxa laga rabaa inay ajantayaasha soo diyaariyaan inay habka loo wada hadlayo keenaan inay wada hadalka ka bacdi isku soo dhaweeyaan bulshada in waxyaabo majorka ay taabtaan iyaguna waxay isticmaalayaan iyo maskaxdooda kaliya kama keenayaan waxay isticmaalayaan aqoon-yahanka iyo indhergaradka iyo dadka taariikhda haya iyo culimada iyo hogaamiyaasha diimaha iyo bulshada isticmaalayaan si ay ajantaha hadda laga hadlayo ay u frame gareeyaan isticmaalayaan marka nidaamka loogu baahday in commission la sameeyo waa nidaamka uu raacayna waa nidaam jaranjaro noocaas oo kale taa horta hawshu waa cusub tahay hadda bilowgeeda hadda sharciga la baasgareeyay wali processkii baa lagu jiraa dooduhuna waa iska fara badan yihiin imaan karaya shacabka dawladda deegaanka Soomaalida shacabweynaha Ethiopia dhan horta ku cusub yahay laakiin shacabka dawladda deegaanka Soomaalida laba weyba way ka arki karaan hadday sidaa u fahmaan anigu hadda aan u sharxayo oo wax xalinaya dalka dantiisa iyo su'aalaha dadku qabo iyo wada shaqaynta iyo national unity-ga wax adkaynaya inuu waxan yahay hadday u arkaan waa si positive oo okay weeye laakiin haddii si kale loogu dhawo lagu majara habaabiyo oo sawir kale laga siiyo iyadana aragti kale ka qaadan karaan iminkana doodaha la keeni doono dee Soomaalidu roolkeeda ka ciyaaraysaa
oo rol way ka ciyaari doontaa marka Soomaalidu inay sidaas u fakarto sidaas u aragto weeye marka commissionkan waa commission de wadanka oo dhan u yaala oo qaran weeyaan marka hawsha sida loo wajahayo sidaas way maalin mawduuca laga hadlayo ayay tahay Soomaalidu ka tashato inay aragti bilees ka yeelato wasiirka ayaa sida uu kala sheegay in xukuumaddu ay diyaar garow ballaaran ka samaysay shirka wada tashiga qaran aadiya sida tabashooyinka Soomaalidu ay qabto loo soo dhigayo iyo wixii tacadiyo ku dhacay sida loo soo dhigayo waxay ku xiran tahay Soomaalidan hadda iyo dawladeennan sida ay u abaabusho waa loo diyaar garoobay hawshaas waxa hadda jira nidaamkeena aniga dawladeenkana Soomaalida nidaam dadka qiyamkiisa ku shaqeynaya oo dhalinyaro iyo aqoon-yahan fara badan abuuray isla markaasna ay taladii wadanka baarlamaankii iyo xukuumadii ay hadda gacanta ku hayaan madaxweyne mataqaana aqoon-yahan oo taariikhda wadankana haya uu hogaaminayo cabinet iyo fulin hay'ado dhisan ay ku jiraan marka diyaar garow fiican baa hadda almost la sameeyay waxayna ku sii xirnaan doontaa sida collaborationka Soomaalidu de gacan dadka shacabka laftiisa dawladda u siiyo dadka dhisantiga qaba ama fikradaha gaarka diidmaha ka qabana inay soo dhawaadaan wixii ajanta cusub ay hayaan ama xukuumadda ka qarsoon ay leeyihiin ama ay ku dhaliilayaan inay markaas soo dhaweeyaan xukuumadduna inay dulqaadkii iyo siiso soo dhaweyntii iyo collaborationkii waana la bilaabay hawshaas oo aad baa xukuumaddu u tanaasushay dad badan oo hadda ka duwan fikradaha sida loo badan yahay Soomaalida dhexdeeda kama jiraan laakiin in la wada hadlo oo inta xagga la tagin la sii kurto ma jiro hawlaha oo gogol xaar la sameeyo oo marka ajantayaasha kuwa imaan karana prediction iyo saadaal lagu sameeyo kuwa hadaba la og yahay inay miiska saaran yihiin laga tashado sidoo kalena Soomaalidu ay ku doodo equity loo sameeyo kor loo soo qaado dhaqaalaha wadanka wax badan laga siiyo maadaama shidaalkan hadda laga dhaxelay Soomaalida resource badan iyo contribution uu wadanka ku yeelan doono in jaamacadaha wadooyinka infrastructure-ka wadanka la dhiso in laga qayb geliyo saamiga dhaqaale iyo midka power iyo midka maamul intay haysan in ka badan laga qayb geliyo hadda inay Soomaalidu u doodo oo saci orad u samayso waa laga maarmaan markii laga midoobo arrimahaas oo hal aragti laga qaatana wax badan baa la goyn karaa la difaaci karaa wax kaloo jira victims fara badan oo tacadiyo ay ku dhaceen oo Soomaalida lagu sameeyay oo TPLF iyadoo dawladda haysata ay ku samaysay baa jira oo Soomaalida dhexdeeda la isku diray oo la soo adeegsaday iyadoo agtan la mariyay marka victimskaasna rehabilitation si loogu sameeyo in iyadana codsigaas la geysto hagaas laba farrimood baan dirayaa waxa weeyaan bayaankan oo soo saaray iyo nagu doorkan ku leenahay national level marka laga hadlayo inagu dawladda Soomaalida nahay qarankuna waa dawlad deegaan isu tagay aqoon-yahankeena mas'uuliyiinteena dadweynaheena shacabkeena inay ku baraarugaan in wada hadal loo diyaar garoobayo wixii qof walba tabayo inuu si wanaagsan oo madalaha laga wada hadlayo soo dhigo inuu wax soo curiyo laftiisa in laga qayb galo in candidates wanaagsan oo looga qayb gali kara hawlahaas ama cadka si fiican roolka Soomaalida ciyaari kara isla markaas Ethiopia contribution ku kordhin kara kaliya ma Soomaali kaliya inuu doodo waa inuu wuxuu u doodi karaa xataa Ethiopia nolosheeda say mid ku ahaan karto iyo qaranka iyo waxyaabaha marka dadkii noocaas ahaa in la soo saaro wada hadalka uu bato la isu tanaasulo midnimo laga sameeyo qofkii dhisanti qaba ama fikrad gaara oo wax diidan la hadlo la iska neefiyo laga qayb geliyo iyo aqoon-yahanka jaamacadaha dhiga ay qalintooda ayaguna ay ka geystaan in wada hadalladaas loo diyaar garoobo laga eego in wax lagu hagaajinayo ay mentality iyo fikrad noqoto in wax lagu xumaynayo Soomaalida wax laga boobayo ayna ahayn haddii Soomaalida wax laga boobaan miiskii baa la fadhiyaa inta badan markii laga hadlayo nidaamkan social economic kuwa badan oo isu dhowahay baa jira habka dhaqan dhaqaale kuwa badan oo isu dhowahay baa jira xagga siyaasadana kuwa badan oo kamid aysan baa jira marka waxay adiga ku damqa oo Oromiyo damqaya oo isku mid ah ka tihiin wixii adiga interest ku ah in Oromiyo interest u yahay laga yaabaa marka looba waayay maayaba majority-gu boqolkiiba boqol adigu xasuma raaco
dhinac loo badan yahay balaad marka inagu roolkeena inaan loo bigarayno ayaan soo jeedinayaa nidaamkan dawliga oo jirana oo Soomaalida ay ka mid tahay inclusive kana in la taageero oo dastuurka wadankana daacad loo ahdo la ilaaliyo maadaama dhaqankeena uu ilaalinayo oo diinteeni iyo dhaqankeeni wax walba inagu aanu saa isku xukuno marka dawladda in loo yeelo noqdo ilaa xad oo la ixtiraamo markay danta fulinayso bulshada waa muhiim sharciga wadanka in la ilaaliyo waa muhiim marka sarreynta sharciga aad baan ugu liidanaa markaan Soomaalida nahay nidaamka qabiilka ayaa aad u xoog badan markii dambi galaan markiiba intaan meel la geyn baa waa odayaal iyo hawl iyo pressure iyo waxa weeyaan la saaraya arrin qabiil marka arrimahaasuna waxay ahaan bargareynayaan oo dawladnimadeena ay riixayaan hoos u dhigayaan inaan institutions dhisano madax bannaan oo sharcigii sarreynta sharciga iyo cadaaladda ka shaqeeyana way liigaysaa way arxada ka jibinaysaa marka arrintan in la saaro ixtiraamo sharciga